دشنا محاسين دشوا وحامل ودشوا وهرقان يالو يا يو حلم ماله على باب دشوا ولا سوي مقشان نيكو مريا تولسان بتولان علنك iyo waxa sameynaysan دشيا ha wallahi waxaan ugu hayn booska ana galnay todobana waxaan siin lahaa reebiciyahan magaalada iyaga waxaan ku Rashid iyo abaar baa ku haysan kartaa artaysa waxa weey walaaleenaya reemad meel ka galan hadda aniga xal mid baan macna dilo uga fakada madaxna ku xigeenka yaa siinaysa anta horta madaxna ku xigeenka waxaan siin lahaa horta reebiciyahan baan siin lahaa السلام عليكم السلام صحابتي ملك استيغ داونسان ملك استيغ la socotaan habeen wanaagsan maanta waxa la duubayaa 17 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenka beesha dhulbahanto oo Puntland ku matali jiray haday baxaan 17 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenka yaa loo qaybinaya mas'uudi heela kala siinaya adeehantada committee lagu baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka 17 xildhibaan cid aad siinayso committee ku xaq bay leeyihiin beesha ka daawanaysa waa qarkuweyna soo follow gareeya YouTube kala ka soo daawada soo dhaabo qarkuweyn wadhow baa imaan okay walaal madaxweyne ku-xigeenkii 17 xildhibaan beesha dhulbahanto Puntland ku matali jiray way ka baxeen iyo xubno kale khaatuma ku biireen xubnahaas oo dhow way banaayihiin adeehantaada yaa siin lahayd noortan ahaantii horta waxaan siin lahaa anu marka kullay madaxweyne ku-xigeenka horta waxaan siin horta goosuur wallaahi bilaa tullay goosuur ahayn male haday qaadan weydo kalkacaan waa kala xiranaa garowana ooga gelina gibidoon calabeeda beed barshay madaxweyne horta anaga xaggaas kale kowdhe maxaa soo haray 17 xildhibaan xildhibaanada horta diito Soomaan toddoba kamid ah horta ana askale horta goosuur baas kale shan kamid ah reexa faa baas kale kowdhe saddexan reeb laba reeb raale warku waa dhan yahay idka taana waxa u qaybinana niyo kuwa yararka ortabla iyo wartagay wanaag tahay waxa siin maynde dalka say waxa soo qaybinaa toban singil maxaa ku diiday warku aan xulay weyn cad baa dhashay waxa la siin maye niyadaan niyo ayuu kuwa dhuxushay dabshidka waxa ka adeejinaa kowdhe waxay aanu male kowdhe khaatooda raacan ayaga isku deegaan yihiin xagaha noo go'an warku waa dhan yahay booso diga wax sama waxa ay kulmaysta way ku xil wax shaqada maahan dishna maxaasin dishii waxa ma ay dishii harqaan yaalو yayo xil male على باب دشوا ولا سوي مقشان نيكو مريا تولسان بتولان علنك iyo waxa sameynaysan dishii ha wallahi waxaan ugu hayn booska ana galnay adeer ma madaxweyne ku-xigeenka goosuur baaska in reexa faayal soo wax gartay maan shaka mid ah muxuu ah wixii kale xildhibaanada shaka mid ah askale laba kamid ah reeb rola askale shan reexa faa baaska warkii waa dhan yahay dishii waxba lama hayo dishii waxba lama hayo warsigay waxba lama hayo harqaan yaal iyo waxa noqon cad baa biin u sheeg kuwa dhuxusho diban warkii waa dhan yahay soo dhaw qarkuweyn marka hore su'aalaha la isweydiinayo maxaa kamid ah waxa kamid ah 17 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenkii beesha dhulbahanto ee Puntland ku matalayeen way ka baxeen dawladoodii iyo khaatuma ku biireen boosaskaas dhan uu banaan yahay adeehantaada yaa siin lahayd madaxweyne ku-xigeenka 17 xildhibaan fikirkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim horta madaxweyne ku-xigeenka waxa iskale gobolka Sanaag waana mudan yihiin warsingeli ha waana mudan yihiin inaan qabiil ka dhawaajin mar habeen gobolka Sanaag baan ir waxa kale oo 17 ka qaadanaya xildhibaan beelihii ku dulmanaa Puntland gudaheeda sida majeerteenka lafaha yar yar qola aan wali ka qayb galin sheegi kartaa xilkooda hadda daaroodka badan oo magaalada Puntland degan mar hadda magacaabi mahayna hadda way isgaranayaan dad badan oo dulman ya xaq u leh in la siiyo xildhibaanada 17 ka ah waka ku soo dhawaa qarkuweyn waa ku dhaw walaal qarkuweyn barnaamijyada waan daawadaa okay walaal 17 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenkii beesha Puntland oo ku matali jiray SSC hadda way ka baxeen khaatuma la dhisay dawladda ku biireen boosaskaas dhan way banaayihiin adeehantaada yaa siin lahayd mise u qaybin lahayd anu waxaan u qaybin lahaa madaxweyne ku-xigeenka horta waxaan siin lahaa martuwaaq sababtoo ah nimanka waxa weeye wadanka in badan u soo halgamay ilaa ya Cabdullaahi Yuusuf haddana wax xilan ma aysan qabanin haddii de nimankaas aniga hadda aan madaxweyne ku-xigeenka la siina de waa wax khalad weyn oo dulmi weyn oo la galay nimankaas aan siin lahaa anigu madaxweyne ku-xigeenka 17 kan waxaan siin lahaa nimanka la yiraahdo darbi daarood marka 17 kan nimankaas aan siin lahaa sababtoo ah haddii meeshan xabado ka bilaabato iyaga noo soo gurmanaya cid kale noo soo gurmanaysa ma jirto haddii hadda aan siino warsangeli haddaan siino de Soomaaliland bima nala aadayaanba haddii aan siino dishishna de waa nimanka kalluunka iyagu waxba ma bedelayaanba marka nimanka darbi daarood baan 17 ka ku sharaf laa anigu ani ahaantayda madaxweyne ku-xigeenkan amartoo qaban siin lahaa labada qabiil baan ku kala sharaf laa labada kursi haddii lagu maqlay macnaha madaxweynaha fariin u gudbaa bixiyay madaxweyne anu waxaan ku leeyahay labada qabiil amartoo iyo darbi daarood nimanka la ilka saana 17 ka si amartoona madaxweyne ku-xigeenka si baan oran laa anigu aduu xilmi aad xil isku sharaxtay laan dheer isku anigu waxaan isku sharaxayaa anigu horta labada qabiil markii la qanciyo ba insha Allah aduu xildhibaanada isku soo sharaxayaan waxa
قنعية هرت قبيلة قنعية ما سودولال في دولة ولا المال walaal madaxweyne ku-xigeenkii 12 xildhibaan oo beesha dhulbaanta matali jiray oo hadda dawladdu gaar samaysay aan ka baxay hadda yaa siin lahayd madaxweyne ku-xigeenkii 12 xildhibaan aniga waxaan siin lahaa qabiiladan meesha ku dulman ma garata yaa ku dulma meesha waxaan siin lahaa ii sheeg cali Suleymaan baan siin lahaa iska qaata dhiila iyo ribciyaan hal xildhibaan bay leeyahay meesha waxaa moodaa inay dad ka tirsaneen iyaga siin lahaa aad iyo aad ribciyaan maxaad siin lahayd waxaan siin lahaa iyaga waa u badin lahaa wallahi si madaxweyne u noqdaan ragga waa dumaashiyaashin inay soo baxaan waxaan siin lahaa 9 baan siin lahaa ma garata okay walaal soo dhawaay walaal macaan walaal madaxweyne ku-xigeenka 12 xildhibaan oo matali jiray beesha Khaatumo oo hadda ka baxay macnaha maamul goboleed samaystay madaxweyne ku-xigeenka 12 xildhibaan yaa u qaybin lahayd Saciid baad siin lahayd adihaantaada wallaahi waxa u qaybin lahayn wakar waa soo dhaweynaynaa walaalahayna si haday go'aankooda gaareen masiiriga marka kale waxa uu taalaa odayaasha dhaqanka ee Puntland xildhibaanadana dadka Puntland ayaa qaybsanaya gudoomiyaha baarlamaanka waxa siin lahaa walaalaheen Derbi Daarood halka mid kaliya madaxweyne ku-xigeenka yaa siin lahayd madaxweyne ku-xigeenka ayri waxa siin lahaa walaalaheen Derbi Daarood Derbi Daarood siin lahayd ba okay 12 xildhibaan duwiga xildhibaanka waa Puntland kala qaybsanaysa jarteen kala qaybsanaya warsangeliyo dashiisha iyana waxa siin gudoomiyaha baarlamaanka waa keenayaan gudoomiyaha baarlamaanka wada haysanayaan wax kale lagu darmaayo iyo xildhibaanada Puntland hadii wax ka helayaan saamigooda ka qaadanayaan waxba la siinayaa ma santa madaxweyne ku-xigeenkii 12 xildhibaan oo ka baxay Puntland oo reer Khaatumaha oo Khaatumeed aaday hadda boosaskaas dhow way banaan yihiin madaxweyne ku-xigeenka 12 xildhibaan macnaha yaa siin lahayd adihaantaada fikirkaaga أنا هانت هرت مدحنا كحين كحين سين لا هرت ربيعان بسين لها دبيتهم حلنا وحن قيم الله أنت سهرتي قبيلة كلا سين لها قبيلة كلا سين لها ما ترين كلادي أنت سوا وقت قادنا صارت ألفتي أنا دادا تتريه أوكا دور قف حدبان في دور رير لأن كسر وحن سين لها شحن ما هرت شحن دبان وحكلوا كوس هاري قبيل كان إلى هذا رئادنا وحن سين لها لبو رئادنا لبو كليه ها ما سهري أنت كلا سهرتنا قبيلة كلا وقيمين لها هذا ها ولكن معناها ما شرتين كليه أكو قيبسه ورثنجلي للكسر ضد كاس معناها يا أمقن dadku waxaan siin lahaa xuquuqda ka maqan tahay siin lahaa wixii soo haray madaxweyne ku-xigeenkii bare haystaan ba Soomahan ورثنجلي وكله للكسر كله دش وكله shan baa wasiya la kasee ha ورثنجلي دش maxaa أمقن adigu waxaan u qaybinayaa inta soo hartay دور كحلان صح ha baa u qaybinayaa ku-xigeenka ma u daysid rabiyaan baa iskala taas adiga lama siinayo dhow qakuwi waa ku dhawaala lama okay walaal kuwiin maxay tahay laakiin iga dawgeed kuwiin waa boqorad iqra ha 12 xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeenkii beesha dhulbaanta Puntland ku matali jiray hadda way ka bixin dawladda Khaatumo la dhisay ay ku biireen boosaskaas dhow way banaan yihiin yaad siin lahayd adihaantaada mise yaa u qaybin lahayd boosaska hadaan u fikiray waxa u qaybin lahaa horta shan waxa siin lahaa leelkasay ma garanaysa iyaga inta dagaalamaya ma garat shanna waxaan siin lahaa reemaadka waa anagii ma garat lama qadin karo magaalada anaga waa haysanaa lama qadin karo todobana waxaan siin lahaa ribciyahan magaalada iyaga waxaan ku Rashiid iyo abaar baa ku haysan ma garat ribciyahan abaar baa okay madaxweyne ku-xigeenkana abaarta haysa waxa weeye waa la leenayaa reemad meel ka galaan hadda aniga xalay mid baan macnaan dilo uga fakada madaxweyne ku-xigeenka yaa siinaysaa leelkasa la siinayaa nin waxa la siinayaa bahalkii maxaa la yiraahdaa madaxweyne ku-xigeenka yaa Hawlo Ismaaciil baa la siinayaa leelkasa Hawlo Sheekh Ismaaciil leelkasa la siinayaa xildhibaaniintina waa si madaxweyne ku-xigeenkana ma ugu daray xidhan waa ugu daray ayadii weeye reerayda wax ka soo watiin ma santahay ku soo dhawaad qarkuin hadhawaaba okay abay macaan madaxweyne ku-xigeenkii 12 xildhibaan oo Puntland ku matali jiray beesha dhulbaanta way ka bixeen hadda Khaatumo la sameeyay Khaatumo ay ku buureen boosaskaas dhan way banaan yihiin adihaantaada madaxweyne ku-xigeenka 12 xildhibaan yaa siin lahayd abay taas hadal ma lehdee dishish la qaadanaya dish maxaa siin madaxweyne ku-xigeenkan siinaya taa hadii isku raaci waayna wax badan kalluunka u xiisaysan ba dhiilaba san cid gali mayso kalluunka naga jaraysan waan ka jaraya tan kale xildhibaanada 10 baa leenaa todobada waxa rabtaan ka dhigtay ninka okay boosan soo gali waa kalluunka naga jaraysan waa u xiisaysan baa in leeyahay